عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن دعوة ديال إلى هانتي ملك استوى أبناء دعوة ونيسان كسر دوّا مركل إيو برنامج قاروان وطلقلني إني كفاية استنبول أهامبا دتك كتحن أو ويب سايت أمان دوريو بيدو نيوز وحاب ما أنت برنامج كيني مرتي إنه آدم فارغ محمود أو قوير مسه qof ku takhasusay dhinaca ciidanka wuxuuna aadan faarax oo ahaa kabtan ciidan xilligii dawladii hore ee Maxamed Siyaad oo ka dambeeyay aadan faarax lahayn mise ma uusan sii wadin hawlihii ciidanka dawladdu markii ay burburtay halkaasi ayuu ku joojiyay aadan waxa uu ku sugan yahay xilligaani magaalada Sangalan ee dalka Switzerland aadan ayaa ugu horeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka kadibna uu wax nooga sheego taariikh nololeedkiisa halka uu ku dhashay halka uu ku soo barbaaray hay aadan bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay waan ku soo dhawahay faad aniga waxaan dhashay 1953 وبناء كتحسن ما قوينه waxaan ku dhashay imarna fahad waxaan ku dhashay gobolka Mudug Gaalkacyo kabacdi meeshaan ku soo yar barbaaray ilaa 13 kabacdi waxaan nimid bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay Fuad wariye Fuad waan mahadsantahay waan ku soo dhawahay Beedow News yaa maandowray haddii aan wax kaaga sheego taariikh nololeedkayga 1953 ayaan dhashay Gaalkacyo soona Gaalkacyo adiga Mudug gobolka Mudug baan ku dhashay meeshaan ku soo barbaaray ilaa 13 qiyaastii aniga hadda sax ma hayo kabacdi waxaan ku soo wareegay koonfurta xamar markaa kabacdi waxaan noqday askari ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed baan ku biiray ka dhaxgalay aadan ma aragtay muduga ku dhalatay Gaalkacyo sidaad noo sheegtay waxbarasho ma soo martay mise ma ilaa waqtigaas quraan kaliya soo maray dib suuraan ayaan soo maray kabacdi waxaan u soo wareegay gobolada koonfureed macnaha ciidan soo qoratay adoo ciidan ma markaas waa yarahay ilaa 13 sano 13 sano qiyaastii markaa kabacdi waxaan noqday ciidanka markaan noqday waxaan bilaabay waxbarasho caadi ah waxbarashada asaasiga ilaa dugsi sare ayaan ka baxay secondary Banaadir 1900 oo ciidan ah 89 ayaan wax ka baxay dugsi sare secondary Banaadir xamar kabacdi waxaan noqday leyli sargaal 8 meeyadii shaalsiyaad waatahay ciidanimada ma waxa ahayd qof la soo raafay oo lagu qasbay inuu ciidan noqdo mise ma aragtay adiga ayaa dalbaday oo codsaday oo jecleed inaad ciidan noqoto ma aniga dalbaday markii hore yani askarinimada anaa dalbaday kabacdi waan noqday marka ciidanimada heer intee leeg ayaa ka gaartay darajada kabtan ma kulliyad baan galay kulliyad 2 sano kulliyadii jaalisiyaad kabacdi waxaan gaaray xidigle waa la iga bedelay xamar waxaa la ii bedelay gobolada dhexe ilaa kabtan baan ku gaaray markaas dad badan ayaa aan ka saynin micnaha marka laga sheekeynayo qaab dhismeedka ciidanka ama kabtanimadu waxay tahay ama generaalka naftirkiisa waxa uu yahay bal markuu wareyso waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxaad kooban naga siisid qaab dhismeedka ciidan mise qaab dhismeedka ciidan dawladeed darajada horta sideedaba waxay isku raacsan tahay 3 qaybood waxaa la yiraahdaa dabley saraakiil xigeen
saraakiil iyo ofishaal generaal ayaa la yidhaahaa. waa afartaa weeye. dable ilaa isbatoore waxaa la yidhaahaa waa askari dabley baa la yidhaahaa. ofishaale inferiore waxaa la yidhaahaa xidigle ilaa kabtan inta udhaxaysa. darajada ugu horeyso qofka marka ugu horeyso uu soo galo ciidan ee la siiyo maxaa la yidhaahdaa? jadiid. marka askariga noqotid maalinka qaranka kow magacaaga la qoro waxaa la yidhaahaa jadiid baad noqotay markaas. askari waa cusub tahay miya? askari buuxa maahi. waxaa tahay jadiid. waxaa lagu tababarahayaa askarinimo sidaad askari ku noqon lahayd, dishibliinkii, kala dambeyntii, ciidamnimadii, nidaamkii. waxaa lagaa saarahayaa wixii shibilnimada aad ahayd oo hab ciidan ayaa lagu tababarahayaa. marka micnaha waxa la barayo adiga aad sheegaysid waa maxay? example tusaale ahaan qori ayaan haystaa, ciidan inaan noqdana diyaaraan u ahay oo ciidanka maaragtay aan ka mid noqdo oo u dagaalamo ama aan u dhinto mise aan wax u dilo diyaaraan u ahay. maxay tahay waxyaabaha la barayo adiga aad sheegaysid? marka ugu horeysa adiga marka hore gurigiina markaad joogtid qof caadiyaad iska ahay. ciidan markaad soo gashid waa waxbarasho gaara, aqoon kale ayaa mujtamac kale ayaad ku biirtay. markaa waxaa lagu barahayaa ciidan hortaro muxuu yahay ciidan. ninka askariga noqonahaya oo ciidanka noqonahaya waajibkiisu waa maxay, muxuu qabanhayaa, sidaas weeyaha. waa tahay waxaad sheegtay in oo qaab dhismeedka ciidanka marka lagu guda jiro qofka marka ugu horeyso oo askarnimada uu dalbado mise uu qorto in la barayo shuruucdii, nidaamkii iyo kala dambeyntii ciidanimo, asluubkii, habkii ciidanka uu dhaqmi lahaa. waa tahay waxyaabahaas marka uu barto ma waxaa jirto darajo labaad oo la siiyo mise marka waxaas uu barto dhamaysto shaqo caadi ah loo diraa, wax xil ah oo loo dhiibay ma jirto? may waa kala labo. waxaa weeyaan ofishaalinka hadduu yahay waxa weeyaan asaga waa gaar wey. laakiin askari marka laga hadlayo qofka noqonaya marka hore tababar baa lagu siinahayaa. tababarkaas wuxuu ka koobnaan jiray waagii hore ilaa 6 bilood. 6 bilood markii kuu dhamaatana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida meeshii markaas lagu talagalay ayaa lagu bedelayaa. ciidanka lagu siinayo ma qoriga qaabka xabada loo ridamiya mise qaabka maaragtay jir ahaantaad exercise aad u qaadan lahayd? wax kasta ama xabada la rido ama exercise la sameeyo ama ciidan halgaaga sheekeeyo ama discipline halaga sheekeeyo halagu baro. adiga ciidan baa lagu barayaa habka ciidan u dhaqmo, hubkiisa, wixiisa kulli. laakiin adiga takhasuskaagu wuxuu noqonayaa meesha lagu bedelo. waxaa jira marka ma waxaa jiro maaragtay sharuudo oo maaragtay qofka markaas lagu imtixaanayo hadduu kasoo bixi waayo askarnimadii laga rusqeynayo loo diidayo asigoo raba xitaa inuu askari noqdo mise waa loo ogolyahay? tusaale ahaan ciidan inaan noqdaan jeclahay, anaa imaaday, anaa isoo qoray, haddana waxa ahay qof fulay ah oo xabadda markaa maqlo xitaa aan istaagnaan karin. ma la iqaadan karaa askariyahan? ma la iqaadan karaa mise maaragtay liimobal inaan askari noqdo? horta hore marka horeba nin fulaya lama qaadanayo. marka horeba nin fulaya maba soo gelayo meesha. waayo meesha ciidan markaad noqonaysid waxaad diyaar u tahay inaad dagaal gashid, dalkaaga difaacdid dabad iyo gudaba. markaa ka bacdi waxaa weeyaan mar haddii tababarku ku bilowdo oo lagu qaato bas wey, waa sidii lagu qaatay wey. darajooyinka kablaha, xidiglaha, laba xidiglaha, saddex xidiglaha, gaashaanlaha, generaalka, intaasoo darajooyin aad soo sheegtay qaabkee lagu siin? 6 bilood ee tababarkii waa dhamaystay. in wadankayga aan difaac diyaar aan u ahay, inaan dhinto diyaar aan u ahay,
waa firfircoonahay dagaalkii maaragtay wax walba shaqo walba oo la ii diray diyaaran wahay isla markii ma generaal liga dhiga ama colonel liga dhiga ama captain liga dhiga saddex xidigle darajada la isiin karo markaasi maxay tahay darajooyinka qaabka lagu helayana waa sidee hadii oo sharaxaad naga siisay darajadu way kala duwan tahay darajada official marka la yiraaho waa inaad qof wax soo bartay minimum marka ugu hooseysid dugsiga waa inaad soo baxdaa markaas waxa lagu qaadanayaa leysirgal marka lagu qaato 3 sano ugu yaraan 3 sano 2 sano ilaa 3 sano waxaad gelaysaa course tababar ayaad gelaysaa academy military aad gelaysaa markaa ka bacdi waxaad u dalacaysaa xidigle ka bacdi waxa weeye halkaas ka soconaysaa marka ilaa general darajadaas waxaa jirta marka darajo kale oo special ah oo qofkii مثلا sargaal مثلا isbatoore hadaad nin aqoon ciidan leedahay oo ilaa isbatoore aad kusoo gaartay waxaa jirta in course gaar la sameeyo oo markaas dadkaas ciidamada aqoonta u leh experience kale in loo qaato markaas xidigle ay noqdaan oo sargaal halkaas ka bilaabaan laakiin normaale sida caadiga waxa weeyaan qofka sargaalka noqonayo waa qof aqoon leh oo iskool sare markuu ugu hooseeyo ka soo baxay wixii ka sareeya waxa weeyaan xidigle marka xidigle noqotid 3 sano markaad kulliyad ku jirtid xidigle noqonaysaa 2 sano markaad joogtid xidig baa ku imaanaysa labaad 3 sano markaad joogtid xidig saddexaad baa ku imaanaysa taa waxa weeyaan waxa la fiirinayaa markaas iska qaadan maahan firfircoonidaada sargaalnimadaada sidaad maaragtay tahay ayaa lagu qiimeynaya haddii aad u qalmin inaad sii dilacdid ma dilacaysid laakiin haddaad u qalantid waa lagu sii dilacsiinaya gaashaanlaha 4 sanaad sugaysaa oo adig saas u soconaysaa marka laakiin bilowga waxa weeyaan waa inaad xidigle ka bilowdaa aqoon nin leh oo dugsi sare markuu wiliita ka soo baxay waa inaad macnaha wax adiga dalbanaysid maahan wax fixed ah oo dawladda iskuulo mise waxbarashooyin kala duwan oo xagga ciidanimada ay leedahay Soomaha waxa weeyaan meel wax lagu barto academy baa gashay xidig lagu qaatay adiga gurigiina joogtay dugsi sare ka soo baxday waxa weeyaan raadiyana waa laga sii deyn jiray macnaha su'aasheedu waxay tahay dhinacii maaragtay waxbarashadii iyo wixii diyaar ah u tahay adiga laakiin dawladdu ma waxa ay ku khasban tahay in ay leedahay xarumo oo ciidamadeeda lagu tababaro oo maaragtay academigaad sheegaysid ee maaragtay iskuulal kale oo maaragtay ay ku bartaan shuruucdii nidaamkii asluubtii Soomahan dawladdu awal inay leedahay meel waxaas lagu barto askariga guriga hooyadiisu ka soo bartaa male adiga waxa weeyaan waa ku sheegay waxaan ku yiri marka ugu horeysa waxa rabtaa inaad sargaal noqoto Soomaha waa inaad la socotaa raadiyaha iyo joornaalka raadiyaha iyo joornaalka ayaa laga soo deenayaa wasaaradda gaashaandhigga waxay rabtaa intaas oo leey sargaal oo ka soo baxday dugsi sare aragtidaada meeshaas ku soo qoranaysaa si caadi ah lagu qaadanayaa markaa ka bacdi waxa lagu qaadanayaa leey sargaal haddaad ku baastid imtixaanadaas lagu marsiinayo imtixaan caadi ah maraysaa imtixaanadaas markaa ku baastid leey sargaal waa lagu qaadanayaa tababar ayaa gelaysaa 2 sano ah ama 3 sano ugu yaraan 3 sano tababar ah ayaa academy gelaysaa academy military kaliya waxa lagu tababaraa askariga wadooyinka uu maray waa kula fahmay askarigii wax walba diyaar u yahay askari ma waa sarkaal weey sarkaalkii mise qofkii ciidanka ahaa wax walba diyaar u yahay Soomahan in dawladdu ay leedahay goobo maaragtay waxyaabaha aad sheegtay lagu baranayo waa leedahay jaalisiyaad baa kamid ah مثلا meelaha lagu tababaro saraakiisha jaalisiyaad baa okay haddii dawladdiiba aysan lahayn goob oo askarigii wax lagu barayo oo nidaamka aad sheegaysid dastuurkaas iyo
qaabkaas horumarkaas aad sheegaysid lagu baray aysan lahayn Ha. askarigii sidee uu kusoo baran karaa waxyaabaha aad sheegaysid ma baran karo waa in marka hore inay diyaar u tahay wey meesha wax lagu bari lahaa iyo macallimiintii wax kasta ha. okay aan ka gudubna marka waxaad inoo sheegtay in ilaa iyo heer kabtan aad kasoo gaartay dhinaca maaragtay ciidanimada Ha. waagii dagaalkii magac lahaa dagaalkii 77 xil noocee ayaad haysay waagaasi xaggee joogtay dagaalkaasi ma ka qayb qaadatay bal waxaan jeclaan lahaa dad badan oo maaragtay dagaalkaasi aysan iyagu wax badan aysan ka ogeen inaad u sharaxdid dagaalkaas waa ka qayb galay laakiin aniga waxaan uga qayb galay warisgaarsiin ahaan warisgaarsiin hogaaminta ciidanka wuxuu leeyahay qaybo badan buu kala baxaa marka qaybta warisgaarsiinta ayaan ka tirsanaa markaa dhinaca baali baana ka qayb galay isgaarsiinta waxaad moodaa waayahan dambe in la casriyey laakiin waayihii hore aysan casri ahayn isgaarsiinta qaab noocee ah ayaad ugu shaqayn jirtay radio military fooniya iyo telegraph iyo waxaas marka ma waxaad leedihiin marka luuqad idin gaar ah dadka raadiyahaasi ee ka shaqeeyo oo maaragtay warbixinada ay isku gudbiyaan qasab waxay leeyihiin mishaab soomaaliga caadiga ciidankii waa soo duleen weerar ay soo qaadeen waa soo soconaa wadadan kusoo jirnaa maya afgarashaa jirta baaqa qarsoon baa la yidhaahaa waxa weeye waxaas oo dhan waa lasoo diyaarinayaa xafiis waxaa jira layihaha xafiiska baaqa qarsoon oo wasaaradda gaashaandhig oo ay leedahay wax kasta halkaas waa lagu soo diyaarinayaa wax cad oo la garan karo maba laga sheegayo meeshaas waxa weeye wax kasta waa qarsoon yihiin qof caadiya ma garan karo kaliya waxaa garan kara qofka buugga waxaas ku qoran yihiin qofka haysta ha magacyadii ciidanka magaciisii wuxuu yahay wax la samayn doono waajibka waxaasoo dhan meeshaas ku qoran yihiin waa tahay marka dagaalkiasi 77ka muddo intee leeg ayuu socday ma 2 maalin 3 maalmood 1 bil 4 bilood sanad qiyaastii sanad buu socday hal sano socday bal marka aad kasir nooga sheekaysid dagaalkaasi maxaa kugu yaabka badnaa inta dagaalkaasi uu socday maxaase maaragtay niyadaadu ay kusoo laabatay oo farxadda aad dareentay inta uu dagaalkaasi uu socday dagaalkii horta hore wuxuu ahaa waxyaalaha igu cajaabka badnaa waxaa kamid a meel alla meeshii annaga aan weerarno markiiba waa ka saaraynaa maxaarada ciidanka laftigiisa wuxuu ahaa ciidan muraal leh niyad u dhisan tahay soomaalinimo ku jirto aqoon leh tababar leh hubka uu haysto iyo wax uu qabanhayo yaqaana marka waxaa dhici jirtay markiiba meel alla meeshii la weeraro ama la wajaho in la jibin jiray cadow waa tahay marka hubka aad haysateen maaragtay kaangiyi iyo beebooyin iyo qoryaashaan yaryar oo keliya ayaad ku dagaalami jirteen mise tayaarado iyo maraakiib iyo waa idin kala qayb qaadan jireen maxaa ku dagaalami jirteen hubka waa kala duwanaa ciidanka waxa weeyaan hubka waa la qaybiyaa sida cadowga shubtiisu u kala weyn tahay ayaa loo kala qaybiyaa matalan aniga meeshaan ku aadanaa diyaarada ma imaan jirin laakiin wax taangina ma jirin laakiin inta kale waa la haystay infantry artillery beebe waxaas waa jireen laakiin taangiya ma jirin iyo maxaa kuugu naxdinta badnaa marka dagaalkaasi intaad ku jirtay wallaahi annaga haddee naxdinba maana arkin annagaaba gacan sarreynay haddaad gacan sarraysidna naxdin maba jirto miino meel ku qaraxdayo rag saaxiibadayo maaragtay miino inta cadowgu dhigay ay la qaraxday waad arkaysaa laakiin markasta annagaa gacanta sare lahayn marka xabsi ma jirin waa tahay dagaalkaasi 77ka muddadaas uu socday aad noo sheegtay ilaa iyo intee aad gaarteen ciidamadiina soomaalida ah ilaa iyo maaragtay tusaale ahaan jigjiga ma gaarteen maya nagayla ma gaarteen ma doolow ayaad gaarteen adhisababa ma u dhawaateen
ciidamadii maaragtay dowladdii maxamed siyaad mise dowladdii soomaaliyeed meesha ugu dambeysay ciidamadu ay gaareen xaggee ahayd ciidanka horta hore dhammaantiis wuu wada qabtay dalka inta soomaalida waddanka soomaalida ee amxaaradu haysato sida badan adiga meelo xoogaa ay ku yar adkaatay waa jirtay sida meeshaan la yidhaaho jigjiga ama aniga hadda meelaha magacyadooda saas ma hayo laakiin dir dhawiye meelahaas xoogaa way adkaatay laakiin sida badan waddanka waa la qabtay dhinacaas anigu ma jiray dhinaca baali dhinaca oo baan jiray dhinacaas baali dhinaceeda nageyle wax yar baan u jirsanay waa tahay arrimahaasi dagaalkii sireenkii iyo maaragtay arrimahaas markaan kasoo gudubno xilligani dowladda soomaaliyeed ayaa waddanka soomaaliya ay ka jirtaa ciidamo soomaaliyeed ay jiro inta badan waxaa lagu eedeeyaa ciidamada dowladdu in ay maaragtay falal xunxun ay geystaan sida kufsasho maaragtay dumar soomaaliyeed xerooyin ay ku jiraan ay ciidamo qof labisan dareeskii ciidan dowladeed asoo ama xidigle laba xidigle saddex xidigle ayaad arkaysaa inuu oo lagu eedeynayo inuu kufsaday maaragtay qof dumar ah waxaa maaragtay inta badan dhacdaa in ciidamo maaragtay qaab dowladeed u socda oo dareeskii dowladeed wato isbaarooyin dhigta wax dhaca wax dila wax maaragtay qarbada bal ciidamadu waxaasi waagii hore ma samayn jireen may waxaas aniga hadda waxaad sheegaysid waaba la yaabanahayba nin ciidan ah ayaa wuxuu asaga mas-uulka ka ahaa ama haddii ilaahay kuu ron yahay waajibkiisa ahaa maxaa weeye ninka askariga waajibkiisa inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaaco laakiin inuu kusoo guryo noqdo maahan oo markaas asaga oo dadki shacabka ahaa oo asaga difaacayay oo asaga ku jiifay nin lagu seexdo waa seexan baa la yiri inuu asaga kusoo hata kaas askari ma ahan waa dad iska burcada weeyaan oo waxay raba iska samaynaya laakiin ciidan ahaan markaan ka hadlayno waajibka ciidanku maahan inuu waxaasoo kala sameeyo waxaana leeyahay waxaa ka maqan dadkaas habkii ciidannimada iyo tababarnimadii iyo nidaamkii iyo soomaalinimadii iyo waajibka uu qabanayo uusa garanayn qofkaas waxa uu ciidanka u yahay waa tahay su-aasha labaad oo aan rabo inaan ku weydiiya waxay tahay waayahan dambe wadankii isbedela ka dhacay dowladdii maaragtay waxaa jiro dad badan oo dowladda kasoo horjeeda sida kooxooyin rag maaragtay magacooda la yiraahdo al-shabaab haddii aad maqashay haddii aad taqaanid iyo haddii kaleba inta badan waxaa dhacda maaragtay in meelo ay dowladdu ay joogto maaragtay ay soo weeraraan mararka qaarkood qaraxyo laga sameeyo maanta ugu dambeysay maxkamadda sare ee gobolka banaadir ayaa weerar lagu soo qaaday albaabka hore ayaa qarax ka dhacay qaraxyadaasi oo qof intuu ismiineeyo oo maaragtay meel isku qarxiyo waagiini dowladdii mise qaabkiini hore ee ciidannimada ma ku jirtay arrimahaasi oo kale mise arrimahan la sheegaya wax ka jira waxaan wax anagu kasayna mahan afghanistana laga keenay iyo iraaqda la leeyahay ma runba mise ciidamadu wax walba waa ay ka suuroobaan oo waa ay sameeyaan horta hore runtii markaan ka hadalno taas waxaa weeyaan ninka hadda maxkamadda sare isku qarxinaya sababta isku qarxinaya looma yaqaan maogta waa maxkamad waddanka gudihiisi weeye waa wuxuu asaga sidaan hadda sheegahayo weeye wixii asaga uu maaragtay waajibkiisa ah inuu difaaco ayuu asagu maaragtay baabi'inahayaa soo maaha laakiin caadiyan ciidanka waxa weeyaan waxaa loogu talagalay cadow wax kasta oo asaga uu samayn karo inuu ku difaaco haddii loo baahdo marmarka qaarkood qof nafti hura oo markaa meel la geli waayey oo haddii ilaahay kuu ron yahay oo difaaceedu adag yahay oo la rabo meesha in la galo in qof asagu markaas
nafti horaa uu isku aadiyay meeshaas kabacdina saa lagu galo meesha isku aadiyo waxa way qoriga meesha ka soo dhacayo ama isku aadinaya ama taangi hadii la kuuranayo socda oo soo socda oo wax lagu celiyana la arag ayuu maaragtay intuu miina qaato oo dhulka jiibsado hoos ka galo ayuu kor ka ridayaa hoos markii saa ku dhaafo dhufayskii baad ku jirtaa taangiga dhufaysku soo dul maraya soo maaha adiga labada lugood dhexdoodaad maraysaa gadaal baa kasoo fuulaysaa gudaad kaga soo ridaysaa markaas waa mar duruuf kaliftay micnaha in oo gaarigaasi aad sheegtay taangaha wixii uu ku ridi lamiya mise sometimes in miinada aad sheegtay qofkaasi uu qaato oo maaragtay meeshii uu dhexgalo oo asiga qudhiisa maaragtay uu meesha isku qarxiyo haddii loo baahdo wuu isku qarxinayaa taangiga lugtiisa isku dhigayaa ma jiri jirtay marka waxaas mise waxyaabo cusub oo hadda la arkay aniga horta ma cusub waay aniga ma arkin laakiin nidaamka ciidanka tababarka marka la qaadanayo way ku jirtaa inaad wax kasta xataa waxa ku jirta haddii cadow uu ku hareereeyo oo markaas aad ka baqaysid meel laga baxalo waay aad ka baqaysid matalan inuu cadowga inta ku qabto sir kaa helo waa istiraysaa ama maaragtay haddii qorigaad haysatay laftigiisa kor matalan hoobiyahoo kale kor baa u tuuraysaa waad ku soo aadinaysaa gab waxa weya dusha kaaga dhacaya taas waxa weeyaan waa mar wax kale oo la sameeyo la waayay macnaha ciidanka hadduu ka awood badan yahay oo awoodna aa u weysid qaab meeshii aad ku gashid macnaha waxaad leedahay qof naftii hura ayaa loo diraya meeshaas uu dhexgalaya isku qarxinaya ha haddii matalan waxaa jira meelaha qaarkood difaaciyada waxaa qaybo badan bay u kala baxaan marka waxaa jira difaac permanent ah oo dawladda dhista kaas midna waxa weeye waa mid kumeel gaara weeye oo waqti kumeel gaara ayaa la samaystaa waa iska caadi dhulkaas ku qodaysa kabacdi waa soconaysaa laakiin midkaas waxa weeyaan aag buu ku salaysan yahay aag buu ku hagaagsan yahay halkaa qori baa la gelinayaa qorigaas waxa weeye dhuntiisa banaanka jirtaa wax alla wixii soonaha soo maroo dhan wuu baabi'inayaa wax soo geli kara male meesha ka horreysana dhirtii baa laga jirayaa banaan weeye waxaa la rabaa qof inta soo gurguurto qorigaas beerka u dhiga oo isku qarxiyo marka daqiiqad ama 2 daqiiqo markuu hakado qorigaas in ciidamadii ay gudbaan inay ciidanku gudbo meesha la dhaafo macnaha waxaan dareemayaa in isku qarxintu aysan ahayn wax cusub marka laga hadlayo xagga ciidanka ma cusub waa tahay ugu dambeyntii habka loo isticmaalayo maaha laakiin habka hadda Soomaaliya looga isticmaalayo taas ma anu ma sheegin midaas waa tahay iyaguna waa nidaam iyo barnaamij u gaar ah leeyahay ku dagaalamaan ma ahan dawladii Maxamed Siyaad saan filayo waa mahadsan tahay aadan Faarax Maxamuud ugu dambeyntii dawladda Soomaaliyeed mise ciidamada Soomaaliyeed dawladda ku jira oo Muqdisho jooga qaabka ay u dhaqmayaan qaabka laga sheekeynayo qaabka aad adigu aragtay mise aad maqashay hadda maxaa kula talin lahayd oo u sheegi lahayd oo kula dardaarmi lahayd adoo mahadsan aniga horta hore waxaan oran lahaa ciidan hadduu si tababar lahayn waxba ma tarayo ciidanka waxaa wanaagsan in la tababaro askariga wuxuu u baahan yahay tababar iyo in loo sheego waajibkiisa tababar ku filan markuu qaato waxa isaga uu leeyahay in loo dhammaystiro markaas askari wuu noqon karaa laakiin matalan duruufa iska jira hadda waddanka waa iska burburay dhaqaalihiisu waa iska liitaa wax laga yaabo ninka askariga inuusan maaragtay waxba saasa u haysan tababar uusan haysan wax ku filan uusan haysan markaa inuu wax iska sameeyo laakiin waxaa wanaagsanaan lahay ciidanka in la habeeyo tababarkiisa la habeeyo aqoontiisa la habeeyo waajibkiisa iyo maaragtay waxa uu qabanayana la habeeyo dad ciidan ah oo aqoon u leh saraakiishii hore ha ahaato ama rag kaloo ka dambeeyo saraakiiloo waxbartaba ha ahaadeene inay maaragtay si fiican u tababaraan gacanta lagu qabto la hagaajiyo waxaan hagaagsanay waxba ma hagaajinayaan marka hore in la hagaajiyo ninka hadduusan wuxuu qabanayaba usa aqoon ama meel waajibkiisaba u aqoon wuxuu rabu iska samaynayaa laakiin markii hore waxa weeyaan 6 bilood ayaa xiro lagu wadayaa magaalo arkeynada meel aadeen oo tababar kaliya waxa madax lagaaga shubayaa
wixii adiga qaban lahayd ceel haddii lagu yiraahdo isku rid afkaas ka shubaysaa yani waajib kala dambeynta ciidanka dishibliinka waa wax ugu muhiimsan ciidanka hadduu dishibliin iyo ismaqal lahayn wax uma tarayo ciidan badan annaga markaan amxaaro weerarnay 10,000 ciidankeena kama badnayn ayagana 500,000 waa ka badnaayeen hadde markhaati waxaad ka tahay muddadii gaabnayd intii la qabtay taas waxay ahayd waa ciidanka oo ka adag waxa uu haysto aqoonna leh dishibliinkiisuna heer sare yahay okay waa tahay aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa aadan sarkaal ciidan oo ka tirsanaa dowladii Maxamed Siyaad xilligan ku nool qurbaha mise wadanka dibadiisa gaar ahaan magaalada Sangalan wadanka Switzerland aad iyo aad buu mahadsanyahay aadan